firaaqadu waa fursad, laakiin dad badan way iska lumiyaan. Hal su'aal: ma ogtahay in firaaqadu aad maanta haysato ay si toos u go'aamin karto mustaqbalkaaga 5 sano kadib? Laakiin dhibaatadu waa tan: dadku uma arkaan firaaqo, waxay u arkaan wakhti maran, halka dadka wax soo saarka ee guuleysta ay u arkaan fursadda wakhti dahabi ah. Maskaxda bini'aadamku waxay jeceshahay raaxada degdega ah, nasasho, distraction, telefoonka, social media, maanta oo inaad isdhex socotid. Laakiin guushu waxay u baahan tahay in aad dib u dhigto raaxada degdega ah oo wakhtigaas si caqliyana, si garaad ku jiro aad u isticmaasho. Haddaba, taasi waa farqa u dhexeeya qofka caadiga iyo qofka run ahaantii wax soo saarka leh. Firaaqadu waa muhiim. Firaaqadu ma aha wax la iska seexdo, ma aha run ahaantii wax la iska dilo. Waa fursad dahabi ah haddii aad si fiican u isticmaasho. 10 daqiiqo akhris maalin kasta, wax cusub run ahaantii ayaad baranaysaa. 15 daqiiqo barasho xirfado cusub run ahaantii ayaad ku soo kordhinaysaa noloshaada. 20 daqiiqo oo duco ah, qalbigaaga run ahaantii ayay dejinaysaa. Wax yar maalin kasta ayaa run ahaantii go'aamisa noloshaada wax ka beddesha. Haddaba, qof walba wuxuu haystaa 24 saacadood, laakiin sida u isticmaalaya way kala duwan yihiin. Haddaba, natiijadu way kala duwan yihiin. Ha luminin firaaqadaada. Firaaqadu waa fursad. Maanta bilow.